dhiganaya ay samaystaan kuwaasoo caadaadkaasoo ka qayb qaadanaya in ay waxbarashadana ku guuleystaan noloshoodana ku guuleystaan mustaqbalkoodana ku dhisaan 1 2 3 caado oo aad dhihi kartid muhiim bay u tahay dhalinyarada jaamacadda dhiganaysa runtii waa su'aal aad u wanaagsan weeyaan oo ku faraxsanayn hawshii adkeyd daba yar digrabtay nolosheenu waa wada caadaad weeyaan hadhow waxaan tilmaamayay qofku 95 waxa uu sameeyo maalinkii inay tahay caado routine oo autopilot ah waxa la yiraahdaa qofku caadooyinka isaga sameeysta laakiin caadooyinkuna qofkii sameeyaan adigu caado laga yaabaa maanta ama ogaali ama ogaal u lahaa ama ogaal u yeelan caadooyin bad maanta sameysatay oo ku sameysmaya caadooyinka ku sameysmaya hatabnaadana ma tugnaadane adigay ku sameynaya marka qofku inuu yeesho waxa jira caadaad ay tahay inaad iska jarto oo dabarkugu ah oo nolosha horumarka ka hortaagan waxa kale oo jira caadaad ay tahay mar hadii noloshaada 95 waxaad sameynaysaa ay tahay routine autopilot aad ku soconayso oo caadada ay yihiin waxa muhiim ah maanta waxa weeye inaad qofku samaysto caadaad u fududeynayo waxa uu doonayo anigu markaan doonayo inaan buug qoro ma lahayn caado wax qoraal markaan doonayo waxbaan qori jiray Facebook-aan posts ka soo dhigi jiray markaan doono laakiin markii aan u holaday inaan buug qoro ayaan ogaaday inaan lahayn caado wax qoraal inaan lahayn bariga hore caado wax akhris waan lahaa laakiin caado wax qoraal ma lahayn haddii doonaysid inaad qoraan noqoto caado qoraal inaad yeelato weeyaan caado qoraal waa maxay inaad maalin walba wax qori karayso ilaa ay ku noqoto habit adigoo wax qoraya maalin baad saragto marka caadaadka waxa kamid ah caadada qofku inuu comfort zone-kiisa ka baxo wax waloo nolosha aad doonayso comfort zone-ku inuu qof ka baxo lafteedu waa caado sida caadada hadda anigu aan caadaysanay wax weey inaan goobadaynu ku raaxaysanayno ay xasiloon inaan iskaga jirno waa caado lafteedu waa caado inaad maalin walba samayso wax isku eeg waa caado waad caadaysatay autopilot baad ku shaqaynaysaa saxdada way la qabsatay inuu qofku marka si constant oo joogta inuu goobadiisa uga baxo waa caado iyaduna wax waloo nolosha aad doonayso halkan waxa ku keenay waa wixii hore u sameyn jirtay waa habkaad u fikiri jirtay waa dareenka fikir qofka sidoo uu fikirayo waxay sameeysaa dareenka ku dhalanaya wuxuu sameeyaa actionkiisa iyo ficilkiisa waxa uu sameeyo ficilkan wuxuu sameeyaa routine marka uu soo laabto routine-kaasina wuxuu noqdaa habits iyo caadooyin buu noqdaa caadooyinkaasina waxay noqdaan character-ka qofka shakhsiyadiisa bay sameeysaa idan marka qofku inuu si joogta waxa maskaxdiisa soo galaya cid uu ku hareeraysan uu la socdo inuu si joogta u challenge gareeyo uga baxo arin muhiim weeyaan oo aanu ku qancin waayo wixii maanta meesha aad joogto waxa ku keenay wixii aad sameyn jirtay waxa aad doonayso inaad noqoto iyo halka aad doonayso inaad gaadho waxay kaaga baahan tahay inaad samayso wax ka duwan wixii aad hore u sameyn jirtay qof ka duwan qofkii hore aad ahayd ayay kaaga baatay taana waxay kugu kalifaysaa kugu qasbaysaa inaad samayso wax ka duwan wixii aad sameyn jirtay haddii aad doonayso inaad nolosha wacyi iyo ogaal iyo aqoon aad yeelato oo aad lahayn caado wax akhris waa inaad caado wax akhris samaysato haddii aad doonayso inaad wax qorto oo aad hore wax u qori jirin caado wax qoraal waa inaad yeelato وهكذا marka comfort zone qofka inuu ka baxo oo si joogta uga baxo aad bay muhiim u tahay reflection dib u eegis qofku inuu noloshiisa ku sameeyo haday tahay waxa uu akhrinayo haday tahay ahwaasha iyo nolosha iyo waxa ku hareeraysan inuu dib u eegis noloshiisa ku sameeyo iyadoo laftigeeda waa caado waa waxay ambiyadu lahaayeen culimadii iyo culimadii dunida soo martay ay lahaayeen qofkuna aanu noolaan kareynin hadii aanu lahayd dib u eegis yamyan baa wuxuu lahaa aroor kasto waa baryaba waxa ku agmara duruus hadii aanad si akhriyin biraad imtixaamada gaariyana wuxuu lahaa hadaan gugii ku kordhaa gabow mooyee ku tarin garaadiye waaye arag ilaa wax ma dhaanti geed inaad geed waxba aadan dhaamin oo iska korayso igana raali adeeraga inaad korayso iska weynaanayso inaad weynaato oo da ku kordho waxa caadi weeyaan waxaad waa dooranaysa ma cuntaduna cunto weeyaan gaajaduna isku diri waad kori adaa iska weynaanaya laakiin aad isbedel iyo horumar iyo noloshaad ku talaabsato si accidental iskaga ma timaado waqti munaasab oo la sugana kuma timaado asxaab iyo saaxiibo la isbarbar dhigana kuma timaado inspiration iyo dhiirigelin sugana kuma timaado waxa ku timaado qofku inuu qasto caadad uu samaysto comfort zone-kiisa iyo goobada uu la qabsaday inuu ka baxo oo si joogta ah isku challenge gareeyo asxaab wanaagsan oo horumar ku talaabsanayso oo u socota ama gaadhay ama ku dhow halka uu hiigsanayo inuu ku xidho saameyn weyn bay isku leeyihiin bani aadamku waa social animal
waa noole bulshaya oo isa saameeya inaad u meel dayato si joogta aad ugu meel dayato cidda ku saameynaysa laftigeedu waa caado u baahan tahay inaad samayso 6 bilood baadaanay noloshaada cid cusub aanay ku soo kordhin oo ku hinaasa gelinaysa ma koraysid waa inta kugu hareeraysan isku xun baad taqaanaadeen haddaad ganacsi ku jirtaan isku xumaad ka wada sheekaysataan haddaad iskuulka sal dhigtaan isku xumaad ka wada sheekaystaan homework ka wada sheekaystaan iyo imtixaanka soo socda soo maaha iyo xoogaa yaroo arrimo kaloo yaroo la xidhiidha laakiin meesha aad u socoto waxaad u baahan tahay inaad yeelato cid gaadhay cidda kugu hareeraysan waxay jaangoysaa waxa aad nolosha ku qancayso qanaacaadkaaga iyo waxaad raalli ku noqonaysa jaangoysaa haddii aad buug aad akhriso bishii ama sanadkii aad buug akhriso laakiin inta kugu hareeraysan aanay buug soo rogin adaa isqancinaya waxaad isku qancinaysaa mar haddaad sanadkii buug aad dhamayso wallahi kuwan waad ka fiicanta yaa gooyey qanaacada iyo raalli inaad ku noqoto hal buug inaad sanadkii akhriso maadaa gooye mise saaxiibadaa baa gooye saaxiibadaa baa gooye haddaad 2 salaadood wiilasha haddaad 2 salaadood aad ku tukataan masaajidka oo jamaacada aad ka qayb gashaan aad ku tukataan saaxiibadaana aanay hal jamaaco aanay tukan aanay haleelin labadaasaad ku qancaysaa raalli baad ku noqonaysaa waad ogtahay inaad wax ka badan u baahan tahay laakiin waxaad ku dheereerinaysaa dad saaxiibada kugu hareeraysan waxaa leedahay wallaahi adagaa ba ka roodha 2 salaadood baad masaajidka kusoo tukataa raallinimada waxaad ku qancayso nolosha ayay saaxiibada gooyaan iyagaa jaangooya adigu ma dooranaysid iyagaa kuu dooraya idan marka mar haddii saaxiibadaa ay wax raalli aad ku noqonaysa iyo waxaad ku qancaysa iyagu ay kuu doorayaan why not cid aad doonaysa inay kuu gooyaan waxaad raalli ku noqonayso maad ku soo biirisid cid ku hinaasa gelinaysa cid meeshaad u soconaysa hiigsatay gaadhay ama hiigsanayso ku dhodhow inaad noloshaada ku sugurto waxaasoo dhan waa caadaad halgeeba hore idin u maqlin laakiin waa caado inay tahay inaad joogtaysaan dib oogis noloshiinaad ku samaysaan goobad inaad si joogta aad uga baxdaan asxaabta aad idinku hareeraysa qofku si uu koro sida geedkuba iyo dhirta iyo beeruhu ay ugu baahan yihiin dhul carasana inay ku bulaalaan oo lagu abqaalo ama lagu beero ay ugu bulaalayaan marka lagu beero ayuu qofkuna wuxuu u baahan yahay biyo koriimo haddaan ay saaxiibada kugu hareeraysan aan ahayn bulsho dad koraya haddaan ahayn adiguna koritaanku waa kaa dheeriyay qofka bini aadamka waad garanaysaan oraada caanka ay tiraahda qofku average celcelisaan wuxuu noqdaa 5 qof ee ku hareeraysan celceliskoodu yahay haddii 5 qof ee kugu hareeraysan ay yihiin dadaan hal buug bishiina akhrin adiguna hayaat way ka dheertay kugu bishaareynaya inaad qof gooni socdo oo asxaab iska leh laakiin inta badan ka maqan oo gooni socdo meel luuqyada iyo laabadida la gala buugta haddaad tahay taa waa kugu bishaareynaya laakiin waxay kugu hayaan resistance fara badan oo gudahaaga ka jira oo ay kuu fududaan lahayd haddaad saaxiibadaada ay ahaan lahayd dad wax akhriya marka mar inaan dheereeyo inaasa kusoo koobiya